gudoomiyaha guddiga warfaafinta ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cawad Axmed Cashar ayaa maanta shir jaraa'id oo warbaahinta isugu yeedhay waxa uu kaga warbixiyay arrimo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen dhibaatooyinka ay dawladaha Talyaaniga iyo Ingiriisku ku hayaan dalka Soomaaliya. Talyaani oo laga rabo inuu dadka ka siiyo compensation, inuu ka siiyo maxay ahayd tacwiid, inuu ka siiyo ummadii Soomaaliyeed u dagaal gashay 1935 oo ku dhimatay meesha la yiraahdo Ethiopia, iyo inuu ka siiyo tacwiid ummadii Soomaaliyeed oo 1925 u dagaal gashay oo la geeyay Liibiya oo dadkii ku dhintay, inuu siiyo hawshii laga rabay oo aynu dhaqan inuu magdhow siiyo, magdhow ummadda Soomaaliyeed siiyo wada wasakhda badda lagu shubayo waxa ku quba kamaniyaal iyagu leeyihiin. dhibaatada Soomaaliyeed number 1 buu ka yahay Talyaani, waana inuu joojiyaa faragelinta uu nagu hayo, waana inuu joojiyaa dhibaatada uu nagu hayo, waana inuu joojiyaa hal Soomaaliya maanta lagu celiyo gumaysi dambe oo aan u diyaar ahayn. warqadda aan helay hadda waa u diray, dad baan u diray inuu ka soo jawaabo warqadaas oo ah warqad gumaynaysa Soomaaliya. arintaasu arin Soomaaliya oo dhan ka xun yihiin weeye. hadda mudaharaad baa la diyaarinayaa arrintaas ka hor imanaysa, wax la diyaarinayaa oo Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa meel joogaan inay ka kacaanin oo u kacaanin qarankooda si ay u badbaadin lahayn. xildhibaan Cashar ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabaha Soomaalida kala gudboon sidii loo badbaadin lahaa qaranka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka haysta shacabka Soomaalida wadamada qurbaha. waxaanu cambaareeyay dawladda Ingiriiska oo ku sheegay shirka ay iclaamiyeen mid ay doonayaan in ay mar kale gumaysi iyo maxmiyado dalka Soomaaliya dib ugu celiyaan. qarannimada Soomaaliyeed waxay ku gaari kartaa inay xusuusato halgankii aabayaashan soo galeen 13 oo ay rag badan ka mid ahaayeen, inay gartaan waxa lagu gaari karaa dhibaatada idinku haysata dibadda iyo waraabaha idin cunaya iyo gabdhihiina meel kasta lagu kubsanayo, inay qiiradeedu idin gasho aad garataan in haddaad wadan leedihiin inaan saa la idin galeen. waxaana ku qiiro qaadataan dhulka aad tegaysaan oo dadku ku faarayaan dadnimadooda iyo jinsiyadooda ay ku faarayaan, taas aad ku garataan oo taas wax lagu heli karaa marka taa garataan Soomaaliya inaad dadkiina u qiirooto wataan. waxa kale oo lagu gaarayaa qabyaaladu kuwii ku dagaalamay qabyaalada oo dadka isku diray iyagii baa markii dambe dagaalamay. inaan qabyaaladu faa'iido lahayn inaad garataan in baa Soomaaliya loo baahan yahay. waxa kale oo loo baahan yahay Soomaaliya nin hadduu lacag sameeyo oo idin qabiilkiina ka mid yahay, lacagtu inay isaga ku kooban tahay inaad la dagaalantaan kuwa dawada dhacday keenaya iyo cuntada dhacday, inaad la dagaalantaan kuwa hoobiyaha idinku soo hogaaminaya oo ajnabiga keenayo la ajnabiga xukunkan ha loo dhiibo aan xukunka joogin, inaad garataan kuwaas inay tuuga yihiin. kuwa lacagta dhiigiina ku soo guranaya oo lacagta intay qaataan diidaya inay dalal kale u shaqeynaya, inaad garataan qaran waxaan ku gaari karnaa qabaa'il baynu nahay. qabiilku markuu isu tago qaran noqdaa. waxaan isu sheegaynaa qabiil inaanu qaran noqon, waxa qaran noqda qabaa'il isu tagi oo dhiigooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda dhowra ayaa waxay noqdaan qaran. inaan garanno qaran inaan la gaari karin haddaynaan qabyaalad ka tegin, cadaalad darrena ka tegin. xildhibaan Cashar ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha marin habaabiyay qarankii Soomaaliyeed iyo dagaalada shabaabku ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya oo ku sheegay inay dawladaha caalamku dabada ka riixayaan si loo fogeeyo xalka Soomaaliya. dagaal sokeeyaa bilaabmay oo wadanka dhexdiisa ah, burbur badan baa dhacay. waxa ka faa'iideystay 3 qolo. waxa ka faa'iideystay nimanka la yiraahdo xarbi ku noolka oo ama Soomaali ah ama gaala ah ama dadka ajnabi ah ama dad kale ah. waxa kale oo ka faa'iideystay nimanka wasakhda badda Soomaaliyeed ku shuba kalluunka Soomaaliyeed ka dhacana. waxa kale oo ka faa'iideystay dawlado rabay Soomaaliya inay burburto. burburka Soomaaliyeed marka waxa u walaaloobay aqli gaab Soomaaliyeed iyo danaysti adduun weyne iyo daryeel la'aan ummadeed oo dad aan daryeelka ummadda Soomaaliyeed garanayn inay arrintaas sameeyaan ayaa keentay arrintaas in uu majarihii qaranka u habaabo. majaraha qaranka habaabay wuxuu keenay ummadii Soomaaliyeed oo adduunka ku firidhay, badaha ku baqtiyaysa, maxay ay tahay laajiin ku noqday meel kasta, burbur weyn oo aan loo baahnayn ay galeen, qoomiyadiina ay burburtay. waxa kale oo weheliya markaas dad baac mushari sheeganaya oo keenay cunto dhacday iyo dawo dhacday iyo maxay ay tahay ka faa'iideysanaya ajnabigii oo markaa gartay in laga faa'iideysto.
isku soo wada duubo shirkan jaraa'id oo maanta xildhibaan cashara ku qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli ay ciidamada dawladaha Kenya iyo Ethiopia gudaha ugu jiraan dalka Soomaaliya. Abdiraxmaan Soomaali, Royal TV, Nairobi, Kenya.